مبارك عيد ونكسن كعيدا وعيدي عيدا عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا أحمد علي بورلي كسر دو سلطان ميديا وفرصة كسية سمحت وقف هذه السنة سياسة دورك تعيد هذا كعيد horta marka ugu horreysay ilaahay waa maxad u sugnaatay iyo ummadda islaamka oo dhan meel walba ay joogaan iyo ummadda Soomaaliyeed baan salaamaya Cabdiraxiin iyo Sudan media-na waan salaamaya waxaan leeyahay ilaahay ka ajartiyo waan ku faraxsanahay farxadda ciidda maanta aawadeed halkan fursad ayaad uga faa'iideysan ayaad salaami lahayd oo khaas ugu ayaa maxaad say oran lahayd maalinta ciid al-adha waxaan salaamayaa marka ugu horreysay ummadda islaamka meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed yar iyo weynba inta wanaag jecel waxaan kaloo salaamayaa waalidiintaydii iyo dhalinyarta reer Brimane Rimantiga aad baan kaaga qaadno waxaan cali hadaan su'aal kale ku weydiiyo sidoo aragtaa ciidaha dhukan lagu ciido Yurubta khaasatan waliba gaar ahaan Germany iyo wadankii hooyo markii aan joognay sidee kula tahay farxad intee leeg ku kala duwan yihiin baa isleedahay xaasabada wadankaagii ama dhulkaagii hooyo joogtay farxad aad iyo aad u weyn bad dareemaysaa dadkii ehelkii qaraabadii cid walba isla ciidaysaa ma garanaysaa kii markaad qurba joogtid xaaladuhu waxa weeyaan iskaabulo aad maxaad isleedahay inaad wadankii goorma inaad ku noqoto doonaysaa Axmed markaad maskaxdaada iyo markaa kala horta wadankii nagu inoo baahay xoogii wadankeenu nahay xoogii ummadda Soomaaliyeed baynu nahay waa inaynu wadankeena aynu dee investment ku samaysanaa amba aynu dadkeena wax ka shanaa dadku inagu sugaya cid sugaya ma jirto marka waxaan leeyahay dhalinyarta fadhiga ka kacoo dee yaa xagga waxbarashadana yaa dhiilaawi aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa Axmed Cali Boorle oo aanu ku reysanay Sultan Media halkan waa Sultan Media waxay la jooga maanta asxaabta reer Brimane dadka degan waliba dhalinyarada anagu aqoonta gaarka u leeyahay gaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله طبعا كسلام يا دمان ومدة الصومالية المسلم كامل كسيتوها وحنا لي عيد مبارك كل عام وانتم بخير لا هي عيد العيد اللي نقال فيه عافمات هي بش برواقه كمان طبعا أصحابتي اللي قالوا عيد ريبريمن بدر آذن عبد الله حسين سعيد يو سودان ميريا دمان أصحابته وحنا لي مكور عيد مبارك واحد كلام كسلام فاميلي dadkaygii hargeysa joogay hooyadii Amin Ahmed Daahir aabahay Cali Xayle Dr. Cali Xayle iyo walaaladay dhamaan waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo dhamaan asxaabteedii hargeysa joogtay intii shacabka aan ku wada nooleena asxaabtayna waxaan leeyahay iyaguna ciid mubaarak ilaahay ciidan u gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo kulli waa maalin farxad leh waa maalin farxad leh aamiin baan leenahay runtii ilaahay ciideeda farxad inuu gaarsiiyo gacalo hal baan qabaa maanta dee waa ciid al-adha waa ciidii deewanka wankaagu ku والله horta dhul gaalad baan joognaayo sheekhu oo kii sheegay lahaa meeshan kamal ruuxa ma joogo awr ma joogo la qalo wax la qala ma joogaan laakiin wuxuu yiri hilib soo iibsado 8 kilo soo iibta bis karo qabta malaabo marka sida Yurub xaaladeeda ma sahla waxa la qala ma joogaan laakiin waxa leenahay in kulli dadkeenii wadankii joogay wadqaana hilibka qalinaya ma sha Allah ma leenahay halkaas aanu hambaliyo idin kulleed qofkii nasiib u yeeshay maanta inuu hilib cuno waad u hambaliyanaysaa runtii waxaad noogu daraysaa ma jirtaa waxaan kaban ka salaamayaa aniyo macallinkayga kubadda igu soo barbaariyay Axmed Maxamed Cismaan Axmed Dugul iyo macallinkayga labaad ee sida kubadda isna aad ka ii soo barbaariyay Salgaado Maxamuud Jaamac Dirir iyo dhamaan waxaan leeyahay asxaabtii kubadda wada ciyaar jirnay qurbaha iyo meel kasta joogaan Hargeysa iyo qurbaha waxaan leeyahay igana aad baan salaamayaa ciid mubaarak saaxiib aad baan ku faraxsanahay waxa weeyaan qof kasta ilaahay meeshiisa ku barakeeyo ciidan ilaahay nu gaarsiiyo caafimaad iyo bashar barwaaqo wassalaamu calaykum amiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta ku soo dhaw waan dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan salaamayaa ma garanaysaa asxaabta halkan isugu timid marka hore salaamayaa ومدر كميديا حسين عبد الله يوم قال يو سودان ميديا مركب روان سلامية وحنلي عيد مبارك مركب حكتوا وحن سلامية فاميلي جيجان رأي أمر حسن ما سلامية ملك استوي شوجان حنقول رئيسين هويدي رقية محمود عبدي أباي عثمان أمر حسن رمان ولا الله عبد الله جوليد ناصر رمان والسلامية وحن كحسين يا ولا الكم عبد الشرود الكم مقالة تشجيع شوجا أدبان سلامية يستجي حاسكيسي عروتيسا وحن سلامية waxaan salaamaya walaalkay aadan ibraahim iyo caruurtiisaan salaamaya ardaan salaamaya waxa leeyahay magaranaysa in
ciid mubaarig baan leeyahay iyo asxaabtayda dhammaan xertii guriga samee xidigtoo dhan baan salaamayaa waxaan salaamayaa egas amax baan salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarig ciid mubaarig baan anaguna intaa iyo in ka badan gaadhsiinayna siciidoo maanta waa ciidul codxa dee ciidul adxaana waa taqaanaa waxa weeyaan ciidda dee rabadaan waxa weeyaan dee waa iska dadku iska gaajoonayo rabadaan baa lagu jiro waxba lama cuni karo laakiin dee ciidan waa ciidul adxa waa ciiddii dee wanka markaa siciidow maanta hilibkaaga ku diyaarsay adigana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta waa su-aal aad u wacan ayaan taas magaranaysa waayo waa ciidul adxa laakiin dee qurba joogta kulley dee magaranaysaa dukaankooda yar bay ka adeegtaano kiilooyadooda ma iska soo yaramistaano sheekhuna waa kii hore sheegay sidii gacalba sheegee markaa magaranaysa aniga kiilooygaygu wii diyaarsan yahay xaaskaygii magaranaysa adduunka ugu jeclaa khadar axmed cali baa insha allah gurigii kusii magaranaysa barakaynaysa ma fahanti iyagana waxaan leeyahay ciid mubaarig iyo magaranaysa ilmahayga oo magaranaysa salmaan iyo safaba waa salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarig yaa xaluudiina magaranaysa oo isa socotaa aad baad mahadsan tahay dhammaantiin waxaad leenahay ciid wanaagsan bismillah waxaan haddana walaalkay xamse ayaan kusoo dhaweynay xamse ka waran dareenkaaga ciidda seed u aragtaa wallahi aad iyo aad ayaan u faraxsanahay shucuurteedu aad ayay u kacsan tahay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maadaama muddo dad Soomaaliyeed aan la joogo dad Soomaaliyeed wada ciideyno farxad badanna ma garanaysaa haddii aan wada qaybsanayno aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waad mahadsantahay ka waran maanta waxaa beriba nagu soo booqday Suldaan Media seed u aragtaa isaga laftiisa wallahi isaga laftirkiisa aad iyo aad ayaanu dhammaanteed ma garanaysaa wax nagu cusub weeyaan maadaama bulsho badan oo meesha ay ku soo badatay oo Soomaaliyeed dee waxaana ay ka mid tahay qayb noogu soo kordhay aad baad u mahadsan tahay xamse waxaa kaloo ku weydiinayaa halkan yaa jaaniskan maanta aad heshay ee walaalkeen xamse nasiye suldaan aad uga faa'iidaysaa ama inaad ka salaanto ama aad uga hambaliyayso wallaahi halkan waxaan uga faa'iidaysanayaa 1 iyo 2 iyo 3 kusoo koobi maayo laakiin waxaan halka salaamayaa hooyadii macaan iyo dhammaan familkayga asxaabtayda reer Briman Cabdishakuur iyo dhammaan asxaabtayda kaleba waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarig ayaan leeyahay dhammaantood aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu walaalkeen xamse oo shucuurtiisa ka warramayay haddana waxaan kusoo dhaweyn doonaa walaalkay axmed haaruun sorry masar axmed kusoo dhawow Suldaan Media oo maanta inaga soo booqday magaalada Hanover seed u aragtaa walaalkeen Suldaan aad iyo aad baan ugu dhaway aad iyo aad suldaanna waa fursad qaali u nasiyo waan ka faa'iidaysanaa farxadda ciidda magacaygana ku saxay laga soo leeyahay xanta Axmed Haaruun Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa magac fiican baa leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay yaad halkan fursadan uu nasiyo walaalkeen ayaad soo uga faa'iidaysanaysaa maanta media inaad ka salaanto maadaama adigoo Briman ku noolaad heshay chance inta leeg wallahi horta koow adiga ku salaamaya saaxiibkay Mustafa oo ag jooga waa ka qaad marka labaad waxaan aad u salaamayaa hooyaday iyo aabbahay ku qaaliyaan meel ku wada ciideyn صح هارون وعبدي يرادو عمر أصحاب تدمات هذا السلام يا ملك استوي جوجان بدو يدي بدبا أنت يقول دو ولي بنا أدبان يدي السلام يا دماتين أدبان وكاغا قادنا والله ما سنتين أحمد عبدي محمد كسر دو سلطان ميديا waxaa kula hadlay walaalka Mustafa bal ka waran shucuurtaada ciidda seed u aragtaa halkan sayaad ka salaami kartaa maxaad fursadan qaaliga uga faa'iideysanaysaa walaal Mustafa aad baad u mahadsan tahay halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan gaar u salaamayaa familkayga waxaan aad u kala u salaamayaa dhalinyarada reer Briman inta xaasilida iyo inta doobka gaamurayba aad baan wada salaamayaa aad baan kaaga qaadnay waad mahadsan tahay bismillah kusoo dhawaad Cabdishakuur Suldaan Media fursadan qaaliga yom ciid al-adha maxaad maanta uga faa'iideysanaysaa halkan maadaama fursadda walaalkeen Suldaan Media waa anigoo Mustafa bismillahir rahmaanir rahiim horta marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr meel kasta joogtaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum jamiicul a'maal waxaan aad iyo aad u salaamayaa si gaar ah waliba u salaamayaa ummadda Soomaalida meel kasta adduunka dacalada ka joog waxaan aad iyo aad si magaranaysaa kaliya laabo si u sii salaamayaa khaasatan inta Briman ila joogta walaalaha Briman wadada aad u khayr badan waxaan jecelahay markasta inay khayrkaas ku sii baraarujiyaan alxamdulillah markoo koowaad waxaan rabaa inaan markooda u mahad celiyo Suldaan Media runtii fursad qaaliya bayna siiyaan maanta fursad qaaliya bayna tahay inaanu ciid magaranaysaa ummadda muslimka la qaybsano meel kasta ay joogaan aanu gaarsiino farxadeeda marka Suldaan Media waxaan ugu rajaynaynaa insha Allah inuu ciidan iyo ciido badan oo kaleba uu magaranaysaa khayrka saawsi u faafiyo ummadda muslimiinta meel kasta farxadooda isgaarsiiyaan adigoo xabeebana aad iyo aad baan ku salaaman walaalkay aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa walaalkeen oo halkan ka salaamayo salaam
بسم الله كسر دو محمد علي سيدو أركتا فرحة عيد الأضحى إدك عيد وطن كشرمني كان هان مقالة بريمان ولكن سلطان ميديا أو نصاب بقضي سيدو أركتا شعور تاسه هل كان يتك السلام لهيد سيدات سو أركتا عيدها وطن كي لجو عيدو يا هل كان difference تلك بعد halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel wala ay ku sugantay waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr maanta waa maalin iga duwan ciidihii kale oo aan Yurub joogo muddo badan maantana aan la kulmay suldaankeena suldaan media marka shucuurtayda aad bay maanta u kacsan tahay halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan familygayga ugu horeeya hooyaday iyo aabahay xaaskayga iyo caruurtayda aan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr qawaran wadankii ciidaha lagu ciidi jiray iyo halkan difference inta laga dhaxay maxaa dareentaa marka dhulkan lagu ciido halkiisa marka joogtay maxaa dareemi jirtay wallahi halkan marka ciid halkan farxad badan ma dareemaysa laakiin dhulkaaga hooyo marka joogtid waxa dareemaysaa farxad aad u weyn iyo shucuur aad la ciidaya familygaaga dadkaaga halkanna maanta aad baan ugu faraxsanahay maadaama aan kiimin maanta gobolka Bayer baan kiimin waanan ku faraxsanahay inaan maanta waanu kugu soo dhaweynaa magaalada Bremen anagu hadaan nahay dadkii deganaa Bremen aad baan u mahadsantahay wax kale oo aad waxaad naga siisaa magaalada degantahay Bayer see looga ciidaa sida halkan looga ciido kale ma looga ciidaa wallahi ciido badan baan Bayer ku qaatay wili farxadan aan maanta Bremen ku qaatay wili lama kulmin waana ku faraxsanahay inaan Bremen maanta la ciido walaalahayga muslimiinta ah waxaan rajaynayaa ciideeda bashbashi barwaaqo inaan ku gaadhno aad baad u mahadsantahay naadir السلام عليكم وعليكم السلام عيد مبارك عيد مبارك yaad ka faa'iideysanaysaa fursadan maanta inaad salaantid waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan anigoon kala saarin dal iyo dibadba waad mahadsan tahay ka waran bal dareenkaaga adiga dareenkii wallaahi waa mid sarreeya maxaa yeelay isku mid maahan horta ciiduhu kuwii waddankii iyo kuwaani wax farqiga u dhexeeya laakiin maasha allah si wanaagsan inoogu dhacday ciidani alxamdulilah anaguna war kula ciidsanay waad mahadsantahay adaa mudan walaal بسم الله الرحمن الرحيم markan waxaan joognaa dukaankii Al-Amin Shop waxaan rabnaa inaanu wax ka weydiino bal dukaanka iyo farxadda ciidda labadaba waxaan imkana wareysanaynaa mulkiilihii dukaanka Sheekh Cabdullaah ku soo dhawow Sheekh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك دمان أمد الصوماليات ملك استيجوغان عيد الأضحى المبارك أيانو لنا هاي ودكان كالامين شوب كويا لمقالة بريمن دالك جرمالكا وحانو لنا عيد مبارك دمان أمد الصوماليات دالنيرada reer jarmalka qaasatan dhalinyarada magaalada Bremen maanta si wanaagsan u ciiday farxadda ciidii hore oo ciidul fitrigana la xasuusto wixii ay meesha ka dhigeen barakallah waxaan sideed u aragtaa suldaan media oo fursadan siiyay hadaynu nahay khaasatan reer Bremen saad u aragtaa waxaan aad ugu mahad celinaynaa had iyo jeer suldaan media oo siiyo dhalinyarada degan Nether section iyo magaalada Bremen Hamburg suldaan media ayaa mar walba jaanisiya ay dadkooda iyo ehladooda iyo qaraabadooda ay ku salaamaan suldaan media waxaanu leenahay hawsha halkaad ka wadid ka sii wad sii laba jibaar dadaalkaaga aad ayaan kugu mahad celinaynaa waana ku garab taagana insha Allah taala anaguna aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa dukaankana waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu ilaahay si balaariyo waxaan daqiiqada farxaan oo ah mulkiilaha labaad ee dukaanka شيفك والله عشان ملكي السلام عليكم دمان والسلام على أمة الصوماليات خاصة بهذا البريمن أحمد دمان وسلامتي عيد ونكسن عيد مبارك sidaad u aragtaa farxadda ciidda iyo suldaan media maanta inay soo gaarsiiyay oo magaranaysa caalamka inoo soo bandhigay inaynu halkan ciidda magaranaysa uga dabaaldegno ما شاء الله ما أنت وتصيف أنا وفرحسنا دمان سلطان ميديا أنا وكذا ما هاد علينا جانسك أمر والبنسي أو بعض بالشدة رر بريمر أمر والبوسو بندق جديد كذا هلا سلامان ما شاء الله وكذا ما هاد علينا ما شاء الله si wanaagsan adigu iyo halkan ka salaamaysaa ugu dambeyntii janiska والله هذه أكابل هذا يقول دمان أنت هذا مقالك يتقانو أنت ندقيس دونت أنت نداود دونت دمان جانس كويس إن شاء الله والسلام عيد ونكس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبان إني سلام يا عيد مبارك بين الله هاي ما أنت هالكنا نسوي معني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaanba anigoo ka faa'iideysanaya fursaddan maanta waxaan halkan hambalyada ciidda uga dirayaa
dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan ciid mubaarak baan leeyahay khaasatan inta af soomaaliga ku hadasha siiba reer somalilan ehelka iyo gacalka dhammaantood waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam wa antum bikhayr ilaahay ciidkan ciidkiisa haynagu gaadhsiiyo caafimaad nabadqab bashbash iyo barwaaqo meel kastoo aad joogtaanba cibaado suuban dembigii waalidiinteena iyo dembigiiniba ilaahay ha dhaafo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirasaaq yuusuf waxaan deganahay bremen waxaan salaamayaa inta muslimiinta oo dhan gaar ahaan dadka reer bremen oo soomaalida ah iyo dadkayga carruurtayda xaaskayga iyo saaxiibaday hadda ila jooga waxaan ii rajaynayaa sanadkan sanadkiisa khayr iyo bashbashi barwaaqo iyo kuwii isku duubma annagoo reer bareemana inaan noqonno asalaamu calaykum mubaarak kulli caam waantum bilkhayr ummadda soomaaliyeed aad baan u wada salaamayaa